nin oday ah ayaa ku soo laabtay magaaladii uu ku dhashay balse waxa uu arkay qiiq madow oo aad u weyn oo ka kacaya saqafyada guryaha aad buu u naxay waxa uu ahaaba gurigiisii aad ka weynaa oo ahaa guriga ugu quruxda badan magaalada balse hadda dab ayaa ka holacaya dad badan ayaa isugu soo baxay goobta qaar waxay ka duubayeen muuqaal qaarna way qaylinayeen laakiin ciidina waxba kama qaban karin nabiga ku salliya ololku si waali ah ayuu holacayay isagoo baabi'inaya xusuus kasta oo gurigaasi xambaarsanaa odaygii gacmaha ayaa uu isku laabtay ilmadii ayaa indhihiisa ka soo buuxsantay jilbihiisiina way daciifeen isla markaas wiilkiisii curadka ahaa ayaa u soo orday wuxuuna si hoose ugu yidhi aabbo hawelwelin guriga shalay ayaan iibiyey odaygii indhaha ayaa u kala furay maxaa tidhi wiilkii ayaa hadalka sii watay waxaan helay dalab fiican oo watay lacag fiican adigana kumaan sugi karin waa uu nafisay oo neef dheer ayaa ka soo baxday deganaan iyo nafis ayaa qalbigiisa ku dhacay ilaahay baa mahad leh ayaa uu si hoose u yidhi hadda guriga inagu ma lihin wuu istoosiyey wuxuuna bilaabay inuu dabka daawado sida dadka kale daqiiqado yar kadib wiilkiisii labaad ayaa yimid isagoo indhihiisu aad u kala furan yihiin oo naxsan aabe maxaad halkan u taagan tahay gurigeennii ayaa gubanaya odaygii ayaa ugu jawaabay hore ayaan u iibinay laakiin wiilkii labaad ayaa yaraha kaday wuxuuna yidhi waxaan helnay oo keliya lacagtii hormariska ahayd heshiisku weli si rasmi ah uma dhammaan odaygii ayaa hal mar taagnaaday isagoo yaaban oo weli naxsan naxdintiisuna waxay ka muuqatay wejigiisa nafiskii yara uu helayna way ka duushay wadnihiisuna mar kale ayaa uu si xoog leh u garaacay haddii qofkii iibsanayay heshiiskan ka noqdo balka warran wuxuu mar kale eegay dabkii laakiin markan xanuun cusub ayaa qalbigiisa ku dhacay si lama filaan ah wiilkiisii saddexaad ayaa u soo orday isagoo neeftuuraya oo dhididsan taleefankiisana gacanta ku haya aabbo hadda ayaan la hadlay qofkii guriga iibsanayay ayaa uu yidhi wax kasta oo dhaca lacagta oo dhan wuu bixinayaa guriga isagaa leh xitaa haddii uu dambas noqdo kadibna wuu aamusay odaygii ayaa nafisay oo neeftu ka soo fuuqday oo naxdintii joojiyey odaygii dabkii ayuu mar kale eegay markan eegistani ma xanuujinayso oo ma dareemayo xanuun uu ku qabo dabkaas madaxa ayuu raxay dhowlcadayn deganna wuu ku dhuftay wejigiisiina farxadda ayaa ku soo noqotay sidaas ayuu mar kale u noqday qof daawanaya oo keliya oo ka warran intaas oo xaaladood oo uu odaygu marayay weli dabka hal wax iskama beddelin waxa keliya ee isbeddelaya waxay ahayd dareenka lahaanshiyaha